xilli dhawaan la filayay in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka bibuheshiisiinta beelaha galmudug oo bilow ah galmudug dhismaheeda loo wada dhan yahay ayaa kulan ay magaalada dhuusamareeb ku yeesheen waxgaradka iyo odayaasha degmooyinka dhuusamareeb iyo guriceel kaasi oo socday muddo 5 cisho ah maanta la soo gabagabeeyay waxaana laga soo saaray baaq lagu taageeray howlaha guddiga bibuheshiisiinta ee dawladdu u xil saartay qabashada shirkaasi iyadoo hadalka odayaashan lagu cadeeyay in ay garab taagan yihiin sida hawsha u socoto iyagoo dhanka kalena baaq u diray beelaha kale aan wali ka soo qayb galin gogasha kuwaasi oo muhiim u ah ka qayb noqoshada dhismaha galmudug lagu wada heshiis yahay gogasha waxa dhigay dawladda dhexe annagu kalama aanu shirin kalamana annaan showrin dalkana dawladdu ayada dawlad ka ah markii ay gogasha dhigtay gogashii bibuheshiisiinta guddigii bibuheshiisiintuna uu yimi waxaan qaadanay si buuxda 100% inaan guddiga bibuheshiisiinta la shaqayno inaan caloosheeda idin tusno inaan guryahayaga idinku soo dhaweyno in wixii dhaxamooda caruurtayada noqdaan in aysan adinka noqon walaalayaalow baaqaas ayaa beelweynta bahweynta cayr soo jeedinaysa waxgaradkeedu cidii arin kala qabtay uusan siyaasad ka noqonin waxaan leenahay shirarka midna waa masiiri midna waa turxaan bixin qabiil isku turxaan bixinaayo aad baan qabaa'ilku inay isturxaan bixiyaan u soo dhaweynaynaa beelaha yimid oo aan ognahay oo soo ajiibay gogashaas iyo dib u heshiisiinta inaan halkaan uga mahad celin waa mahadsantihiin waad u dhulateen waana u dhalateen dhaga fudaydkiina iyo karaamadiina iyo qaran jacaylkiina amaalkeedu leey isla markaas halkaan waxaan uga yeeraynaa beelaha kale ee wali aan imaan waxaanu leenahay baaqan hore loo jeediyay waa ku celcelinaynaa si aad u ogaataan inaanaan ka caajisin dalabkiina iyo sugitaankiina soo dhawaada walaalayaal sukaana keena gogasha waxa fidisay dawladda dhexe laakiin nasiibka ahaaday dhuusamareeb in laga fidiyo annagu mar haddii deegaankii aanu deganayn gogashii laga fidiyo waxaan si shuruud la'aan iska xil saarnay walaalaha kale inaysan naga dhaxamoon soo dhaweyn diiran aan ugu tala galno xilkaas aan idinku yeeraynaa gogasha dawladda dhexe fidisay reer galmudug aan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan weji furan qalbi furan rabitaan ka run sheegid walaalnimo annagoo goglihiina sii fidi doonna annagoo guryihii horeba uga baxnee dhaxan ka jiifna annagoo wax walba daryeelayna annagoo meel kasta idinkaga hor imaanayna sida ay ku habboon tahay ama ugu wanaaga badan annagoo idiin soo dhaweynayna waxaan idin leenahay soo dhawaada si aan u helno midnimo si aan u helno dawlad loo dhan yahay si aan u helno dhabbihii dhismihii galmudug si aan u helno oo ay noogu saxnaato sidaasaan soo jeedinaynaa labadii maalmood ee u dambeeyay waxa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug soo gaarayay tiro odayaal ah oo qayb ka noqonaya madasha dib u heshiisiinta beelaha galmudug kuwaasi oo metelaya qaar ka mid ah beelaha degmooyinka galmudug Cabdullaahi Warsamo Roble Soomaali News TV dhuusamareeb